السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا إله سبحانه وتعالى أيام حد إسكاله الله أن إرزاقه الله أن نديله الله أن نوليسيو أيام هذا ودن إسكاله حلي كان إنا بيجك كسوه الله وحيوك اللي في نينك يهودي جاء على الدائرة اللي يراهدو هذا الكيس مركان مغلي أسيقوا الله هذا مدحوينها قرنكا مضاني حسن شيخ محمود بلس إلهي سبحانه وتعالى آيدي سقرآن كأها كو قنبانيو oo halkaas ka raadinayo dhibaatada umada Soomaaliyeed oo asiga ku haayo inuu aayadihii Qur'aanka kaga gambado amba ahadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan dhihi lahaa ninkan fircoonka ah yahuudiga ah cali dheere la dhaho awalan ma ahan madaxweynaha qaranka amba kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud mid adiga aad fariin u soo direysid noocaaga amba mid la mid ah askariga kula hadlay hortaada fadhiyo aqoon ilaahay siiyay oo ku filan uu leeyahay ma ahan jaahil sidaadoo kala ah oo inuu shacabka umada Soomaaliyeed dhameeyo masaajidada iridooda u fariisto amba oo dhibaateeyo umada Soomaaliyeed diyaar u amay balse adiga waxa tahay fircoon ki umadan loo soo diray waxa tahay musaylamatul kadhab ninki la dhahaayay oo yaani ninki ugu been badnaa oo hadana nabinimo sheegtay maanta aayadii quraanka ayaa soo qaadanaysaa aayadu ku banaysay maxay tahay in aad masaajidka irida hortiisa aad fadhiisatid oo aad dad u dirtid nin masaajidka ku jira in la soo dilo aayada ku banaynaysa maxay tahay marka insha Allah ta'ala waxaan halkaan uga baaqayaa umada Soomaaliyeed meel alaale meeshay joogan codka ayaan ka go'anahay hooga shaqada qaranka ayaan mar walba lugta kula jirnaa mana jiifan karno annagoo arkayno yahuudan al-shabaabka ah oo u weyn yahay fircoonka cali dheere la dhaho iyo midka mahad karatay la dhaho dawladda uma soo hanjabi kartaan maleeshiyaadka aad sheegaysidne ma ahan waa qolo waalidiintooda iyo awlaadooda inaa xoog uga qaadataan go'aansateen ee inay iska ka dhiciyaan u diyaar garoobeen ayagana waxaan leeyahay ciidanka intii niyada ka jecel oo hub soo qaadatay oo inay dagaalanta rabto waxaan leeyahay guul wacan cadawgan argagixisada al-shabaab in laga baabi'iyo wadanka ayaa u baahan insha Allah ta'ala Soomaaliya noolaato marka insha Allah ta'ala mar walba waxaan go'aan inoo ah ina cadawga argagixisada al-shabaab aan laga baqin aan mar walba la ahaanin mid gumeysi ku jiro amba midna casnimo ku jirto amba mid hadaladiisa la cabsanayo insha Allah ta'ala waxaan diyaar u nahay amarka oo maanta la bixiyay in argagixisada gees walba looga imaado meel walba waa idin kaga imaan doonaa insha Allah ta'ala idin kama cabsanayno fircoon baatihiin musaylamatul kadhab ayaatihiin waxaatihiin Xajaaj bin Yuusuf as-Saqafi يعني قوم كيسي أو أمدا بلاش إسكجد من جري أرجع حسد على الشباب وجادا باقي أو كباقي مدحوينها مدن حسن الشيخ محمود وباق جرة وإذن كان أتكبا بيدونتان إن شاء الله تعالى سوماليا هنولاتو عيدا كان محانو شيء ميل الله لمشي وكسجنيهين إن عدو أرجع حسد على الشباب أم بعدو جوز قماتك أمد الصوماليات إن عن كهر إيمانه عن كدفاع عن ودنك هرددين اسم الراعي سو أنه حلقف الشباب ودنك سوكونوا لي هاي إن شاء الله تعالى سيدي أيام الجنة أوربان أيام أننا الجنة أوربنا
balse jannada tooda iteena way kala tahay annaga teena annagoo nafta badbaadinayno inaan geeriyoono ayaan diyaar u nahay ayagana ayagoo ummadda Soomaaliyeed dhibaateynayaan inay geeriyoodaan ay diyaar u yihiin insha Allah ta'ala waxa diyaar inoo ah yahuuda argagixisada al-shabaab oo cali dheeraha sheedaanka fircoonka u weyn yahay baaqa aad u soo diraysa madaxweynaha jawaabtiisa anaa ku filan anaana ku siinaayo insha Allah ta'ala dagaal ayaa inoo calaamaysan haddaad idinka janno galaysaan annagana janno baan galaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay aayadiisa qur'aankana inoogu sheegay oo adigana afkaaga aa ka sheegtay ma ahan yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam ha ka been sheeganin waayo gaalada nabiga ganacsi ayaa ka dhaxeeya taa way wada ganacsan jireen in la soo qabto ayaa masaajidka nabiga lagu soo xiraayay lama dilaynin marka adi waxaad naga dhigaysaa inaan annaga ridownay aan diinta ka baxnay marka insha Allah ta'ala waxaan ku sheegayaa jannada u baahan tahay waa u baahanahay dagaalna waa inoo calaamaysan yahay meel alaala meesha joogtaan waa idinku baabi'inayna wa billahi tawfiiq khayr ayaa idin rajaynaya Soomaaliya meel alaala meesha joogtaan ha laga wada kaco ururkan ugus meel alaala meesha ku jiraan oo u gali doona insha Allah ta'ala mudan Xasan Sheekh Maxamuud waa mahadsan tahay dhawaaqitaanka aad ku dhawaaqday oo al-shabaab in la baabi'iyo aad iyo aad ay u mahadsan tahay mudan madaxweyne guul iyo gobonimo ayaan ku leeyahay Soomaaliya ha noolaato wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan waxaan kale ka salaamayaa xildhibaanka aanan dhicin xildhibaan mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ilaahay dartiis aan u jeclahay ayaa halkan ka salaamayaa lagama bixin karo mar walba salaanteedu way la socotaa waayo ilaahay dartiis ayaan u jeclaaday hore ayaan u sheegay haddana waa sheegayaa berina waa sheegi doonaa kama caajisay waa madaxweyne hore laakiin balse xildhibaan aanan dhicin waay maanta balse anika ahaan ilaahay dartiis ayaan u jeclaaday kuma jeclaanin kursiga kuma jeclaanin dhaqaalo waxaan leeyahay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo